maanta waa maalintii koowaad ee ololaha xisbiga wadani doorashooyinka isku sidkan ee deegaanka iyo wakiilada musharax walibana waxa uu fagaaraha ku soo bandhigayaa taageerayaashiisa musharaxa golaha deegaanka degmada Gabiley Cabdinaasir Haaruun oo ka sharaxan xisbiga wadani oo nambarka codeyntiisu yahay 303 ayaa taageerayaashii ugu badnaa ku soo bandhigay khayryada Gabiley iyo Wajaale kumanaan kamid ah taageerayaasha musharaxa golaha deegaanka ayaa subaxnimada hore iska xaadiriyay khayriyooyinka magaalooyinka Gabiley iyo Wajaale taageerayaasha musharaxa oo kula bisnaa astaanta calanka wadani iyagoo gacantana ku sitay astaanta musharaxa iyagoo jidadka waaweyn ee magaalooyinka Wajaale iyo Gabiley mariyay ayaa waxay ku dhawaaqayeen halkudhigyo taageero ugu muujinayaan musharaxa golaha deegaanka degmada Gabiley Cabdinaasir Haaruun waxaana la iskugu soo biyo shubtay khayryada degmada Gabiley waxaana halkaasi kala hadlay oo ka mahadnaqay taageerayaashiisina soo buux dhaafiyay fagaaraha musharaxa golaha deegaanka degmada Gabiley Cabdinaasir Haaruun oo nambarka codeyntiisu yahay 303 iyo madaxda xisbiga wadani ee heer qaran waxaana hadaladoodii kamid ahaa guulaysato xisbiga wadanaha guulaysto aad iyo aad baynu ugu mahad celinaynaa inagoo saaka lixdii soo istaagay ilaa hadda taagan oo milica oo kulayl iyo dhibaato u samray aad iyo aad baynu uga mahad celinaynaa waad ku mahadsantiin baan leenahay taageerada iyo adkaysiga aad muujiseen intaa ka bacdi anigoo ah Cabdinaasir Haaruun Hobbane oo ku dhashay degmada Tago Jaale waxna ku bartay maanta waxa ay soo geliyay siyaasadda oo doonayaa 14 sano oo xisbiga kulmiye u tumanay waxaan ka haynaan jirin marka waxaan doonaynaa inaynu dhisno xisbiga wadani oo degmadeena iyo gobolkeena ugu dhaqaalaha badan halka uu kaga jiro waad ogtiin Soomaaliland ayaa laynagu wareejin waxbaan qabanay waxaad xisaabisaan miisaaniyadda soo gasha iyo intay fadhiyeen ayaa la isku xisaabinayaa markaasi waxa weeyaan waa dadkaas wadadina khasaariyay waxaan doonaynaa inaynu xisbiga wadani wixii noo soo diyaariyey xildhibaanadii baarlamaanka iyo golaha deegaanka ee bedeli lahaa ee soo celin lahaa dadka muwaadiniinta niyaddooda soo celin lahaa walaali waxaan fariin uga dirayaa oo aan aad u hambalyeynaya isbahaysiga dhawaan ka dhashay ee mucaaradka ee yoolis galbeed la baxay ayaan halkan hambalyo uga dirayaa waxaanu jeclayn inay baxay yoolis noqoto oo ay shan xildhibaan yeelato laakiin hadday sidaa u dhacdo waanu idin ammaan gelin lahaa codka iyagunbaa wax naga siinaysaan yoolis galbeedow waanu idin ammaan gelinaynaa laakiin wixii aan noogu tala gasheen baa la siinaysaa ka golaha deegaanka waanu idinka haynaa ku gola baarlamaan baan idinka rabaa waa yoolis galbeedna intaasaan leeyay Wajaale ganacsatadeeda fariintaasaan u farayaa anigu xabsi ahaan qolaanu ballansanayn baa jirta oo ahayd iskaashatada muruqmaalka iyo iskaashatada gaadiidleyda waxaan idinka codsanaya inaad codkii diisiisaan xildhibaankaa sita 303 waa inagii ballansanayn qolada iskaashatooyinka kuwa muuska waxaan idinka ogahay 303 inaad ii siisaan sida loogu soo baxay iyo dadweynaha reer Tago Jaale ee u soo diyaargaroobay iyo dhammaan gobolka Gabiley oo maanta muujiyay inay yihiin wadani ballanteenu waa wadani 303 na guulaysto dhammaanna guulaystaan xubnaheena xisbiga wadani dhammaantooda guulaystaan baan leenahay waxaan leenahay Cabdinaasir waan garab taagannahay iyo dhammaan timajilic baa ugu sitay yidhaahdeen go'aayagii deegaanka horaa ayaad igu soo noqnoqday wadana Wajaale mid baan idiin sheegaya waddada annaga aad ii dhisnay Muxammaayar iyo cid toona idiin dhisnay abaad igu yeedi ku sheegan wayaan wadana codeedi iga doonin waxaan rabnaa waliba waxaan leenahay intaanu joognin inta meeshaan ugu wax qabadka yareemay degmooyinka gaadlasma marka la eego marka wadda codorkii la diga doonin golaha iyaga hore ka wada mid ahay baan la kaftano aan ku wal maadareeyal ma gudbanaayeen noqonay waxaad dib ugu noqotay meena gudubna guri mawduuc cusub ay galeen oo keena marka waxaan leeyahay raggii la midka ah waa in maadareeyal ma gudbanaayeen noqonay mawduuc cusub aad dileedii keenay hore aynu uga socono oo aynu banayna dhalinyarada inaga dambeysay middaasaan leeyahay waxaan leeyahay haddaynu jeelay toban madaxweyne doorano inay shay qoladii khudbadda kulmiye ka sheegaysay war waa kii inoo sheega farteen eeday waqtaynu eedayde xamaru waayo waa kulmiye intaasaan xabeebsaday raalli ahaada
dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda tan waan salaamayaa waxaan aad iyo aad u salaamayaa bahweynta reer waddani ee lixdii saaka ilaa saacadda cadeedda taagan ee samirtay ee bilaaqadada aad iyo aad baan idiin salaamayaa raalli ahaada u samray mushashiciintiinna waxaynu taagannahay maalintii uu lahaa cabdilaahi suldaan timacadde abwaankii soomaaliyeed 3 iyo maalmo haddaan soor cuni waayo safrad laygama yaabo sari maysa naftayda maalintii baynu taagannahay sow maaha waddan ha guulaysto waxaan leeyahay yar haddaan taariikhaha dib ugu noqdo xisbiga waddani guushiisu way dhowdahay sow maaha waxaa halkan maraya murashaxii weynaa ducayeelkii reer sheekh isaxaaq mar hadduu toljecle qaatay mar hadduu toljecle laga soo sharaxay xisbiga waddani waa ducayeelkii reer sheekh isaxaaq waa guul nin kastoo laga soo sharaxa sow maaha xisbiga waddani yaroo farriinaan u dirayaa 303 wasiid maxamed madar siidhana real TV gobolka cagaaran ee Gabiley.